السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأذن سلامي مسلمين وإسلامين إنا في عنتين بارتشين يا ميلا جوكتان بقى أنكم وافعنا الحمد لله بارتشينيا waxaan rabay arrin yar inaan maaragtay aan ka hadlo oo ah waxa jirtay hadda koor waxa jirtay gabar aan ka hadlay oo Hana Abubakar li waxa jirtay in baraha bulshada gabadhaas laga laalaaday oo dambiye loo haystay oo dad loo haystay oo wax loo haystay oo la aflagaadeynay oo la dhibaateyn marka bariga wixii iiga aadanaa intaan islaha karankaagan ka hadlay معاين من عذابين من أفلقادين قفنا وحكم الشيء قفنا وحكم لكن وحي أنت أنه أنا يدك أقاني بانشيقة حقنا ولا الشيقة يوحي رمى هداتك آمستو معناه هدو حوي إنها ترالي كتهي واحد عاية هدا أرتا واحد عاية هدا آمستد وحوي معناه هدو وحسرالي بانكا ترين بهالكاميرا أنا إما تقان أنا براه بالشد ماشاس كارك إلا كيد إما تقانو waxaan rabay wiigi dhaweyd mise talaadadii mise dhaweyd bay waxay soo gelisay program ay kaga hadlaysay waalidiinta caruurta laga qaato marka waalidka waxay tiri waxaan ka hadlayaa waa intaan ka xasuusto waxaan ka hadlayaa dadka xun inta wanaagsan kama hadlo marka waalidiinta ilmaha laga qaatay bay ka hadlaysay marka anigu marka hore waxaan moodayay inay programka wacyigelin ay macnaha ay leedahay dadka saas u dhaqma saan caruurta leen kaga qaadan waxa sameeya sharcigaas laakiin markan xoogaa sii dhageystay way ka bedelnayd xoogaa waxay u ekayd inay waalidiinta canaan ay u direysay waliba xoogaa ay liidaysay marka horta baanavanka waxa la yiraahdo waa hay'adda caruurta badbaadisa wadankan Yurub oo dhan bay ka jirtaa Scandinavia bay ka jirtaa Norway way ku badan tahay caruurta kuwa xoog u qaata weeye marka qoliyahaas ayaga caruurta qaata aniga aan arkaysin tiraka 3 jeer mise 4 jeer baan foodo istarnay halii meeshii laba marood ku dirirto caws baa ku baabaa laba 3 jeer baan waxaan ku ire waxa ka dhacday waxaad haysa soo daa bal linkay u darantahay dunida ogaatay marka horta adigu haddaad isubtid horta koo waxay ugu qabsadeen ilmahaaga oohin badana markii labaad nooc ugu qabsadeen ilmahaaga ma hadlo mar saddexaad waxay ugu qabsadeen de sanada u dhexdhexaynaysa isla maalmihi maaha waxay ugu qabsadeen gabdhaad ka xaysayo meel inta geysay baad wax ku soo samaysay markaad adigu isubtid oo aadan ogtahay inaadan waxaas laga sheegay bari ka tahay wad isbari yeelaysa luqadda aqoon ama ha aqoon waxa laga rabaa adiga inaad tahay qof soo jeeda aniga ujeedkayga hadda raba aan ka hadlo aniga wax soo weeraray iyo wixii dhacay inaan arrintan caruurta la qaato ka hadlo ma aha waxaan rabay inaan iraahdo Hana Abubakar programka aad wado waxaad ka dhigtaa wacyigelin kritiserinka ka daa waxa weey cambaaraynta cambaarayn walaalay waalidiinta ilmaha laga qaatay oo iska dhiban mana wada xuma ilmaha waxa lagu qaataa isfahan la'aan bay u badanta inta badan waalidka isagoo fiican oo dadaalaya baa waxa ku dhacaysa dhaqankiiba kala duwan diin baad adigu wadataa wax kalaad wadataa dhar baad wadataa cunto gaaraad wadataa afaara iska batay guuriyad meeshan la timid marka dawladda baa waxa laga rabaa inay dadka wacyigeliyaan oo qofka cusub programka u sharaxaan waxa la sameeynaya aniga ilaa waa imid wadanka anoon xabad luuqada aqoon ba laba dumar ay timid waxay yihiin ma aqaan waa ku caruurta qaata ima oran caruurta ku qaataana iyo kuwa caawiya midna waa ii soo galeen laba islaamood ba ii timid ilmahaaga ha halkaan ii farfarisan isla fiicna jikada jukum sambus wasoo tuur qarda waa iska macaana ba iska leeyihiin ma ogiba 5 sano gabdhaad waxaan ogaaday dumarkii ii imaan jir marka tuulada kaliya deganaa cidlada inay caruurta indhaha isku fiirinayeen aniga la ii socon oo leey salaamay
marka waxaa jirta laguma wacyigelinayo inta turjubaan lagu qabto hana waxaan dhihi lahaa arrinta waxaad ka dhigtaa waalidiinta in wax loo akhriyo waalidiinta sharciga la baro waalidiinta in loo yarjiro loo sheego oo xuquuq inay leeyihiin loo sheego waxaan arkay hooyooyin inta caruurtii laga qaatay iyo aabayaal gurigiina laga tuuray oo laga ceyrshay bal fiiri xuquuq buu qofku leeyahay wax badan buu leeyahay qofka ilmaha laga qaata xaq buu leeyahay in la dhaqaaleeyo leeyahay daawo leeyahay midna lama siiyo Soomaalida daawan xabsi la gelin bay burasida marka xadgudub badan baa jira xadgudub badan oo ku dhacaya waalidiinta ilmaha laga qaato baa jira cid u doodaysa male cid u dacwoonaysa waaba lagu qoslayaa waaba lagu hebel ma jidaa ilmihii baa way hore laga qaato hatta 20 sano wadanka joogo waxa laga yaabaa weligiis inuusan aqrin qodob hebel oo ilmaha lagu qaato qodobka kaas dambigaasad ku galaysaa kaas xaqaaga ku jira kaas waxaas ma inaan weligood loo sheegin anagu xoog khaladkan yar oo dhacaya markuu dhaco markiiba haddii aynu iscaawino haddaynu Soomaalinahay oo aynu isu gurmano oo aynaan oranna caawa dhuumo oo caawa guurayo caawa cararo caruurta qaxi wuu saxmayaa marka halkaasaan kusoo gabagabaynayaa uu dheeraaday hana waxaan leeyahay meesha aad maaragtay ka cambaaraynaysa waalidiinta iyo guryahooda iyo labiskooda iyo buurbuurnaantayada iyo baruuraha iyaga meeshaad ka cambaaraynayso dhaqanka iyaga iyo buurbuurnaantayada iyo unsiga aan shidayno iyo maxaan ku iraad xalwadan karinayno iyo sheekadayada iyo sidaan u soconno iyo sidaan isu dabadidno iyo meelahan is istaagno iyo qayladayada kore iyo waxaas aan waxaynayno wacyigelin noo sameeyo oo Scandinavian Sweden maalin program ku qabana soo casun noo sharax Norway imow ana hool ku soo qabanaya ku soo kireynaya iska bixi lacagta kireyso nagana nacasun cabitaanka iyo naga bixi naqaabil noo sharax Denmark sidoo kale Finland sidoo kale Ingiriiska sidoo kale waayo adigu xataa qof dawladda u shaqeyso oo sharciga garanaysa oo ma aragtay intan anigu aan ka arkay wax badan baan arkay adigoo wax ka qabtay arrintaana ka bedel waxaad ka bedeshaa cambaaraynta waxaad ka dhigtaa wacyigelin waalidiinta wacyigelin sidaas iyo nool kulantee salaamu calaykum raxmatullaahi wabarakaatuh